Hello, 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 فوقسني وبراني ضيعي وقاسو بالعني بالشر وبالغير الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. لأن يرى وحان جوجني إن مارت الرجالبات دتك صوبان ودن دت عدانها إني كنت المامان وحان شاق المركز نمرود أيان جوجني هذا نمرود وحي كشاقان كليه inuu Mesopotamia dhulka loo yaqaan Babylon inuu joogi jiray ay ka sheegaan, laakiin halkan inuu ka tagay ardu bunt bilaadul bunt inuu ka tagay way qariyaan sidii ay isku day jireen faraacinadii inay qariyaan sidii fircoonkii Ramses II Ramseski labaad la dhihi jiray Ramseski way badnaa Ramsesyashi way qariyaan inta badan Cleopatra ma sheegaan batatan waxay sheegaan kaliya xabsashuudna taariikhdii baa fiday mar hore faaftay tan sidaas la mid ah nimruud halkan kulku ka tagay ciidanka ugu xoog badan ee dhulkan ayuu haystay markaan idin leeyahay Soomaalida dhulka ilaa iyo saxaraha galbeed ayadaa maamuli jirtay bimaana waxa weeyaan awood weyn bay lahayd awoodii weyneed way kala wiiqday awood kastana way jabtaa goormay jabtaa waa haddii cadaalad darro ay samayso xukun kasta markuu cadaalad darro sameeyo wuu burburaa si kastaba ha u burbureen cadaalad darradaas ayaa burburinaysa nimruud wuxuu tegay Mesopotamia dhulkaasoo dhan xukumay ilaa wuxuu tegay dhulkan Falastiin Gaza taariikhyahanada qaar waxay yiraahdaan ilaa Ramallah ayuu joogay oo tagay qaar baa yiraahda ilaa Jerusalem uu gaaray laakiin anu ma arag hadaba ninkan Nimruud dadka qof xun iyo qof wanaagsan buu leeyihiin qowmiyad dhan oo wada wanaagsan la arki maayo adduunka qowmiyad dhan oo wada xunna la arki maayo laakiin inaga dad aad u xunna waa lahayn dad aad u wanaagsanna waa lahayn kuwii ahraamta dhisoo kale maalan dadkii dhulkii udgoonka loogu imaan jiray ee dawooyinka laga soo doonan jiray ilaa bariga fog loogu imaan jiray waa isla anagii ee ganacsiga ballaaran adduunka idin la lahaa maca Romaaniyiintii maca Griiga halkan ay u soo doonan jireen ilbaxnimadooda way dhowdahay nimankan Romaaniyiinta iyo Griiga waxaa buunbuuniya nimanka la yiraahdo UNESCO ayaa buunbuunisa si taariikhdaadii asalka ahayd loo masaxo ma ka sheekeeyaan kama sheekeeyaan mana soo hadal qaataan taariikhdaada asalka ah maxay diideen waa ka hinaasaan wanaaga aan soo samayn ay ka hinaasan yihiin oo maartay ka masayrsan yihiin ma ogola ibadkooda sidaa bay ahaayeen meel ay ku duulaan ay burburiyaan dadna ay bilaqaysaan ka tagaan laakiin halkan way u suurtageli weysay birigaa ayaga la odhan jiray Romaaniyiintii Griigii la odhan jiray halkan way u suurtageli weysay way annagaaba dhul qabsan jirnay dhulka markay nagu arkeen dhulka Masar oo Mediterranean-ka u dhawaa haddana halkan markay yimideen bunt way arkeen xukun dhisan kala dambayn leh ciidamo aad u lixaad badan jooga oo hub casri ah haysta xilligaasi kan ugu casriyaysan buu ahaa Nimruud kolkaa kadib ayuu maartay sheekadiisii baaba'day way xukun kasta markuu cadaalad darro sameeyo si xun buu Ilaahay u galaa nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam ayaa ka baxsan waayay dadna nabi Ilaahay nabi soo dirsaday يا ويلك فيلو waxa imaan kara sidaas la mid ah xukun kasto weyn oo adag oo xoog leh kulku cadaalad darro sameeyo oo
dadka uu maamulo cadaalad darro ku sameeyo wuu burburaa daaqadu ka baxaa weli taariikhda isma bedesho waa sunna walan tajid lisunnati illaahi tabdiilan walan tajid lisunnati illaahi taxwiilan waa sunno ilaahay jirtay iyadoo qaab kale unbay soo martaa dunida nimankana iminka iswaalwaalaya meel hebel aan qabanin meel hebel way bililaqaystaan meel kastay tagaan berberiska berigay ahaayeen vikingska berigay ahaayeen dhul bay tegi jireen ummad bay laayi jireen baabi'in jireen marka halkaanaan ku yar hakinaynaa haddii alla yidhaah laakiin wuu socdaa cashirka wuu socdaa dadka susuuban oo idil maysan wada caddeen oo sidaa gaalkaa ma ahayn qaar baa innaga ahaa qaar baa asalkooda halkan ahaa insha allah casharada soo socda la xidhiid ogow laakiin qur-aanka baro tafsiirkiisa baro axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaamna baro kolkaabaa in badan ogaan kartaa oo sii shishaysa sir badan baa kuu soo baxaysa oo haatan kaa daahsoon haatan wixii lagugu shubo unbaa qaadataa iska diid heryadaa gumaysiga iska qaada af qaali baad leedahay dhaqan qaali ah baad leedahay iska diida dhalinyaro aqoonta u soo jeesta oo aqoonta ku salaysiiya diinta islaamka ku salaysiiya insha allah waa guulaysanaynaa kulligeena wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu